waxay ahayd maalintii ugu la yaabka badnayd ee noloshayda maadaama aan booqday goob aanan hore u arag intii aan noolaa taasi oo aan kala kulmay yaab badan goobtan aan booqday ayaa waxaa ku nool xayawaano kala duwan oo halis ku ah nafta aadamaha balse waa muhiim in la booqdo goobtani isla markaasina aad daawato bilicda qurxoon iyo deegaanka ay ku nool yihiin kumanaan ka mid ah xayawaanada duurjoogta ah oo kala duwan sida libaaxa harimacadka shabeelka iyo kuwo kale oo badan asxaabta halkan aan joognaa waa Nairobi National Park baan joognaa oo runtii ah meel aad u cajiib ah halkan aan joognaa looma ogola in dadku gudaha u galaan kaliya gaariga ayaa saarnaanaysa maadaama halkan ay joogaan kumanaan xayawaan oo kala duwan oo duurjoogta ah sida libaaxa shabeelada iyo xayawaanada kale ee khatarta ah oo subax hore oo aroornimo inta badan waxay fiican tahay inaad subaxii halkan timaado si aad u aragto xayawaano kala duwan oo goobtan maraya waxaan isku dayi doonaa inaan aragno libaax iyo xayawaano kale oo khatar ah nala socono intaad ku sugan tahay beerta xayawaanka ee Nairobi National Park ayaa waxaad arkaysaa muuqaalo ay yar tahay inaad si toos ah u aragto marka laga yimaado muuqaalo yaryar oo aynu ka daawano telefishinada iyo baraha bulshada kala duwan waxaana ay ku tusaysaa quruxda iyo qaybaha kala duwan ee nolosha xayawaanada duurjoogta ah ayuuhan waxay noqotay maalintii ugu la yaabka badnayd ee noloshayda maadaama aan kala kulmay dhacdooyin la yaab leh intii aan ku sugnaa beerta xayawaanada duurjoogta ah ee Nairobi National Park sida haatan daawada muuqaalkan idinka muuqatana waxa uu ka mid yahay muuqaaladii ugu la yaabka badnaa ee aan arko intii aan joogay beerta xayawaanka waxaana ay kala yihiin xayawaano kala duwan oo duurjoog ah kuwaas oo ka dhaxeeyo dagaal aad u ba'an kaasi oo midba midka kale uu ka ilaashanayo naftiisa mararka qaarna dagaalada noocan oo kale ah ayaa waxay socdaan saacado iyadoo mararka qaarna ay guuleystaan mararka qaarna ay guuleysan balse waxay tani fursad u tahay boqolaalka dada ee jooga beerta xayawaanka kuwaas oo iyagu daawanaya ilaa iyo halka ay ku dambeyn doonto sheekada asxaabta sawir arkaysaan halkan waxaa jooga boqolaal qof iyo baabuurtoodii oo ku jira Nairobi National Park waxyaabaha cajiibka halkan ku aragnay goobtan ku aragnay waxaa ka mid ah libaaxyada halkaasi fadhiya oo aad wada arkaysaan runtii kuwaasoo tiradoodu aad u badan tahay dadyowgana waxay xiiseynayaan inay daawadaan xayawaanada kala duwan ee ku sugan Nairobi National Park waxyaabaha cajiibka ee sidoo kale ku arkaysid Nairobi National Park ayaa waxaa ka mid ah sida muuqaalkan oo kale haatan oo libaax si deganaan leh u dhex socda baabuur badan oo ay saaran yihiin boqolaal qof oo halkan u yimi si ay u daawadaan xayawaanada kala duwan ee duurjoogta ah sida boqorka keynta ama libaaxa beertan ay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee Nairobi National Park ayaa waxaa la sameeyay sanadkii 1946 iyadoo haatan kaga jirta liiska goobaha ay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee guud ahaan Kenya kaalinta 8aad haddaba daawade haddii aad marun timaadid Kenya goobtana ka mid noqoto goobaha dalxiiska u tagi doontid waa hubaal inaad ku soo arki doontid muuqaalo cajiib ah oo aanad hore u arag kuwaasoo ku tusaya nolosha xayawaanada kala duwan ee duurjoogta ah ku xidhnow Ayuub Show lana soco muuqaal cusub